Maxamed Mursi waxa uu siyaasadda Masar ka soo muuqday kadib markii uu ku guuleystay doorashooyinka madaxtinimada. Waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee rayid ah isla markaana Islaami ah ee dalkaasi yeesho. Waxaa soo sharxay oo u tartamayay kooxda Ikhwaan Muslimiinka oo uu doorashooyinka ku matalayay kadib markii guddiga doorashooyinku ay diideen inuu is soo sharxo Khayrat al-Shadir oo ahaa musharaxa koowaad ee Ikhwaanka. Arrintaas oo Mursi ka dhigtay in lagu naanayso al-Istabin. Maxamed Mursi waxa uu dhashay Agoosto 20 1951. Waxa uu ku dhashay gobolka Al-Sharqiya ee waqooyiga Masar. Waxa uu shahaadada PhD ka qaatay jaamacadda Southern California ee gudaha dalka Mareykanka. Waxaana uu ku takhasusay Material Engineering. Markii ugu horeysay ee siyaasadda ka qayb galo waxay ahayd sanadkii 2000 oo loo doortay xubin ka tirsan baarlamaanka Masar. Janaayo 2011 dalka Masar waxa uu galay xilli cusub. Malaayiin Masaari ah ayaa waxa ay codsadeen in madaxweynihii xilligaas ee Xusni Mubaarak inuu xukunka ka dego. Xilliga kooxda Ikhwaan Muslimiinka ee dalka laga mamnuucay waxay si toos ah uga qayb galeen mudaharaadka. Ciidanka ammaanku waxay qabteen Mursi iyo tiro kale oo ka tirsanaa hoggaanka sare ee kooxda Ikhwaan Muslimiinka Janaayo 28-keedii. 2 maalmood kadib qabashadiisa waxa uu ka baxsaday xabsiga oo dad badan ay fursad u heleen in ay isaga baxsadaan. 2 sano ee xigay wadanku waxa uu galay dejinta dastuur cusub, baarlamaan cusub oo ay ku badan yihiin kooxda Ikhwaan Muslimiinka. Mursi waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee si dimuqraadi ah loo doorto dalka Masar June 2012. Laakiin madaxweynaha cusub waxa uu la kowsaday mushkilado badan oo dalka Masar jihooyin kala duwan uga furmay. Muddo xileedkiisa waxa uu Masar dhibaatada ugu badan noqotay korontada oo kala go'aysay iyo shidaalka oo aad gabaabsi u noqday. Qaladaadka madaxweynaha waxa aad uga ugaarsaday kuwa aan lahayn u saariyay qolooyin telefishinada gaarka ah leh, gaar ahaan kuwa komandiyada ka shaqeysta ee dadka madadaaliya ee ku sugan gudaha Masar oo aad u dhaliilay. Waxa ugu darnaa majaajirsaha la yiraahdo Basim Yusuf oo ugu badnaa dadkii aadka u dhaliili jiray madaxweynaha dadkan ku kiciyay. Iyadoo ay jirtay in madaxweynuhu xoogaa simbirxooyin yar oo dhanka arrimaha dibadda ah ka dhaceen. Waxa uu ka qayb galay xabad joojin dadaal dheer dhexmaray xilliga Xamaas iyo Israa'iil. Waa intii uu socday dagaalkii Gaza ee 2012. Laakiin xilligaas waxay ahayd bilowgii dhamaadka muddo xileedkiisa. Waxa uu ku dhawaaqay inuu isbedel dhanka dastuuriga ah sameyn doono halkaas oo uu ka helayo awoodo dheeraad ah. Arrintaas oo dad badan ay ka mudahaaradeen, qaarkoodna ayba ku dhinteen barxadda qasriga madaxtooyada. Arrintaas oo keentay inuu wajaho maxkamadaha iyo ciidanka gadood badan sameeyay. Xilliga madaxweyne Mursi waxa uu bedelay wasiirkii difaaca Hussein al-Dandawi oo lagu bedelay Generaal Abdul Fattah al-Sisi. Laakiin waxaa dhashay dhaqdhaqaaq ka soo horjeeda madaxweynaha oo aad u xoogan gudaha dalka Masar. June 30 2013 sanad guuradii koowaad ee markii uu xukunka qabsaday ayaa malaayiin Masaari ah ay isugu soo baxeen fagaarayaasha iyadoo doonaya in madaxweynaha uu xukunka ka dego. Mursi waxa isku rogay oo inqilaab military ku sameeyay Abdul Fattah al-Sisi oo markaa ahaa hogaamiyihii ugu sareeyay ee ciidanka Masar. Inqilaabkii Masar ka dhacay dood badan oo heer caalami ah ayuu dhaliyay. Laakiin markii dambe xaalku waa iska degay oo malaayiin qof ayaa sida la sheegay taageertay. Iyadoo xilliga mudaharaadyaal ka soo horjeeda inqilaabka militariga si xoog ah looga laayay gudaha Masar. Iyadoo xilligaasna uu noqday kii ugu dhiiga daadinta badnaa taariikhda Masar. Ciidanku waxay cagta mariyeen teendhooyin dhan oo ay ku sugnaayeen taageerayaal doonayay inay xukunka dib loogu soo celiyo Maxamed Mursi. Arrintaas oo keentay in boqolaal qof ay dhintaan. Wixii intaa ka dambeeyay Maxamed Mursi lama arag isagoo dibadda jooga xabsi gudihii mooyaane. Iyadoo ay jirto in marar badan uu inkiray sharciyada maxkamadda ayaa haddana dil lagu xukumay iyadoo lagu haysto xabsigii uu ka baxsaday sanadkii 2011 ilaa uu ka geeriyoodo June 17 isagoo xabsiga ku jira. Isla maalintii xigtay ee Talaadadii shalayna lagu aasay gudaha Masar. Aas kooban oo xubnaha qoyskiisa iyo looyarkiisa ay joogeen.